Assalaamu calaykum. Faransiiska iyo Islaamka maxaa ka dhaxeeya? Maxay tahay Faransiiska xiqdiga iyo cadaawadda uu u qabo Islaamka? Haddii aynu fiirino Faransiiska, waxaan maqalnaa dowladda sinaanta insaaniyadda. Haddaba haddii aad sidaas moodayso, ma aha, wuxuuna ku jiraa dowlad taariikh madow ka gashay gumaadka iyo xasuuqii lagu gumaaday malaayiin muslimiin ah ee Aljeeriyaanka ama Jazaa'ir. Wuxuuna intaasoo gumaada waday waxay ahayd xorriyaddaannada aanu qaadanno keliya. Haddana muslimiintii uu gumaaday wuxuu u daabulay waddankiisa madxaf ku yaala magaalada Baariis. Haddaba maanta keliya maynan bilaaban cadowtinimada uu u hayo Islaamka. Nin ayaa Nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kartoon uu sameeyey ku matelay kartoonka ay carruurtu daawato. Nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Haddaba markuu ninkii sidaa u sameeyey, waxaa dilay 2 nin oo muslimiin ah, laakiin iyagiina waa la dilay. Haddaba ninka Macron lagu magacaabo ee Faransiiska xukuma ayaa fashilkii ka haystay dalkiisa iskaga dejiyay cay uu caayay Nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, isagoon xushmaynayn 2 bilyan oo aaminsan diinta Islaamka. Haddii aynu ninkan fiirno noloshiisii yaraanta, isagoo 16 sano ayuu macallimadiisii iyaduna khiyaamaysa ninkeedii uu gogoldhaaf la sameeyey. Hadda waa islaan ka weyn 2 jeer. Haddaba ninkan waxay soo ifaxday ceebihiisii markuu aflagaaday Nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Haddaba walaal, ka mid noqo malaayiinta muslimiinta ah ee u heelisay Nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ugu yaraan jooji agabka ama cunnada lagu soo farsameeyo dalka Faransiiska. Haddii aad isleedahay anigu keligay maxaa yeeli, way yeeli ee ugu gargaar Nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Wabillahi tawfiiq. Walaal, haddaad muuqaalka heshay like saar, sidoo kale haddaad channelka cusubta subscribe saar si aad ula socotay barnaamijyadii soo gelino. mahadsanid.